Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Allah mahad iskalo ina makaniyay inaan soo gudbino casharadii taxanaha waana very important taasi. Facebook page-keena fariimo waa kusoo diri kartaan. Somali Star Online hadaa Facebook soo qortaan page-keena toos idin keenaya waana muhiim jiddan taasi. إذا نقصوا قلي كرتان سومالي صار لنا blogspot.com وأنا إنجنير محمد أحمد برغي عشرة سيتحنا وميجان كستيب باي ستيب هاد بتلعب أنا رئيسي قاعد دونا وأنا مهم جدا تاسي المعلومات سومالي صار بديه .com ويقصوا دير كرتان فريمو إذا عشرة فربطان رأي عنصو قاعد أنا يرد إذا كردواني وبوجي ديفلوبين سكيل إسا ليس 52 عنصو قد بينا ما دارد إذا كسو بني داريزونا سانتياغو نوت كارولينا يستوت كارولينا يرد إذا لندن نبرين أمسيت كسو بني يرد إذا نوروي فينلاند دنمارك سويسرلاند iyo Sweden ku kala sugan iyo ardayda Canada iyo Australia ku sugan iyo ardayda Saudi Arabia iyo Dubai Qatar Kuwait iyo Turkiga ku sugan iyo ardayda Maine Soomaaliya ku sugan sida Muqdisho Hargeysa Boosaaso Galkaxay Beledweyne Beledweyne Shabeellaha Shabeellaha Dhexe jibada Bay Bakoli Gado si siman baa loo qaadan doonaa waana very important taasi casharo fara badan baan soo qaadanay laysan 52 baan usoo gudbayaa Madismart Madismart hadii lagu yiraahdo dhoobo waa undoobo. My cousin Harry in abtigay Harry keeps a large curious shaped bottle wuxuu haystaa dhala aad u qaabaysan on permanent display oo ku jirta bandhig joogto ah in his study qolkiisa daraasaadka despite kasabkooda fact xaqiiqada that the bottle dhaladaasi is tinted in lagu hareeyay a delicate shade of green iyo midab cagaaran an observant visitors ninka safarka ku jiray foojigani wulsuun markiiba booqdaha foojigani wulsuun markiiba notice wuxuu arkayaa that is feel inay ka buuxaan with what looks wax u eg like thick gray is substance walax qara weyno midabka dameeriga leh if you were hadii tuaaskaad weydiiso Harry ninka la yiraahdo what was waxay tahay in the bottle dhalada he will tell you wuxuu ku sheegi doonaa what it contained inay ku jirtaan perfumed mad dhoobo cadaraysan ama dhoobo barafoon leh inay ku jirto. If you express that depth or surprise hadii aad la ka muujiso kale markiiba la yaab hadaad muujiso he will immediately markiiba identify wuxuu kugu martiqaadayaa you to smell it inaad ursato and then it kadib rub some into your skin xogaa yarna aad maqaarkaaga mariso. This brief experiment tijaabadan kooban will dispel wixii ka kaxeynaysaa any further depths wax walbo shaki walbo aad qabtay you might entertain wax walbo aad shaki ka qabtay ayuu ka kaxeynayaa entertain ma weeladan kusoo baranay haddana ka kaxeynaysaa way ugu jirtaa. The bottle quraarada really dhab ahaan does not contain perfumed mad waxa ku jira really dhab ahaan contained waxa ku jira perfumed mad dhoobo cadaraysan ama dhoobo barafoon leh. How Harry sida uu Harry coming to ku yeeshay the position milkiyada of this outlandish stuff ya walaxdii san la yaab kale isku cufan staffkii ma aha waa isku cufan makes waxay sameynaysaa an interesting story sheeko xiiso badan which he is found of uu ka helo relating warinteeda. Furthermore waxa intaa dheer waa isku xire waa isku xire waxa intaa dheer the acquisition lahaanshaha ama milkiilanimada of this bottle quraaradani cured waxay ka daaweysay him asiga of a bad habit caado xun he had been developed for years uu sanado la qabsanayay. Harry ninka la yiraahdo use to consider it great job wuxuu iska sameyn jiray majaajilo aad u weyn to go into the expensive markuu galo dukaamada cosmetic shops alaabta la isku qurxiyo gada wuxuu iska gali jiray to go into expensive cosmetic shop wuxuu iska gali jiray dukaamada alaabta lagu qurxiyo gada and make wuxuu iska sameyn jiray outrageous requests codsiyo gadooda ama dagaala for goodies oo badeecooyinka that uu dalban jiray that do not exist and jirinba. He will invent wuxuu ikhtiraacay jiray fanciful names magacyo qiyaala of on the spot oo asiga uu hiwaayad ahaan uga helo.
On entering a shop markuu galay dukaan, he will ask wuxuu dalbaday for a new perfume cusub koolad la yiraahdo scented shadow or ama for insurably bath cups saabuunta lexgeesoodka ah oo aan biyaha ku milmin. If a shop girl gabadha dukaanka gada told him hadday u sheegto she had not heard inaysan maqal abidkeed of it taasi, he will pretend wuxuu iska dhigdhigi jiray to be considerably without mid cara la baktiyay. He loved wuxuu jeclaa to be told in loo sheego that once markiiba of his imaginary products ashyaadiisii uu soo alifay was temporarily ku meel gaara out of the stock inay uga maqan yihiin dukaanka oo aan la dhihin waxaa weligeed ma maqal inaan la dhihin buu jeclaa oo la yiraahdo way naga maqan yihiin alaabtaas. And he will wuxuu ballan qaadi jiray uu ballanqaad ku sameyn jiray to call inuu soo wici doono again mar kale at some future date maalmahaas ama waqtiga soo socda. But laakiin of course dabcan he never did weligiisa ama samayn oo ma wixin weeye. How Harry sida Harry managed ugu guuleystay to keep a straight face inuu wejigiisa qumaati ka dhigo during this performances gudashooyinka markuu ku jiro is quite beyond me ayaa i dhaafsan ama waan fahmi kari waaye weeye. Is quite gabi ahaanba beyond me way dhaafsan tahay ama waan garan waaye taasi. Harry does not need Harry uma baahna to be prompted in lagu kadiyo to explain inuu sharaxaad ka bixiyo how he bought siduu ku iibsaday his precious bottle quraaradiisa qaaliga ah of muddy dhoobada ah. One day maalin maalmaha ka mid ah he went to an exclusive shop wuxuu galay dukaan alaab qaas iibiya in London magaalada London and asked wuxuu ka dalbaday for Murraylight waxa la yiraahdo Murraylight waa sidii iska liftay. The shop assistant kaalihii dukaanka oo gabar ahayd looked Bazelet way la yaabtay way jahawareerto way and Harry ninkii repeat uu ku celiyay the word ereyga slowly tartiiba stressing each salibari uu u shidayo mid walba wax walba sida shidka u saarayo oo muxuu lahaa marka Murraylight. When goortii the girl gabadha shugay ruuxday hair madaxeeda in bewilderment si jahawareera macnaha strange oo kala la yaab leh. Harry went on wuu sii wadi way to explain inuu sharaxayo that my Murraylight waxaa Murraylight la yiraahdo was had amber like substance inuu ahaa walax sida ambarka oo kala ah which will be used oo loo isticmaali jiray to remove inuu tirtiro ama ka nadiifiyo freckles waxyaabaha furuuca wajiga ka soo baxa. This explanation tafsiirintani evidently ayaa wixii cadeysay koonfurad gaarsiisay way something shay to the girl gabadha who searched oo baartay shelf after shelf qaanad. She used waxay soo saartay all sorts nooc walba of weird concoctions oo qiyaalkii uu dalbaday ah. Weird waxa weeye strange la macno tahay, concoctions waxa weeye inaad qiyaali dalbato. Concoct ba ka timid concoctions qiyaaligii uu dalbaday. But laakiin none of them midna ma qaabilin with Harry's requirements baahiyaadkii Harry. When goortii Harry put on his act uu ekaaday of being midly annoyed mid yara carooday. The girl gabadha barmaayad waxay ku ballan qaaday to order inay u dalbayso some for him xoogaa intoxicated markuu la marqaamay ama la saqraamay by his success guushiisii. macnaha la marqaamay oo la saqraamay way intoxicated markuu la marqaamay ama la farxay weeye by his success guushiisa oo saqraan bay ugu jirtaa laakiin qabri muusa cabine. Intoxicated waxa weeye markuu la saqraamay by his success guushiisii. Harry ninkii ahaa intaa kadib askad wuxuu ka dalbaday for perfume dhoobo cadaraysan
he expected wuxuu filay the girl gabadha to look inay u eegto at him asiga in the blank astonishment ya la yaab maran ay kusoo eegto la yaab maran blank waa ibra astonishedna waa la yaab maran inay indhaha kusoo taagto ay tiraahdo waxaan miyuu waalan yahay oo kale. However si walbay ahaato ya it was his turn waxaa soo galay Janiski to be surprised lagaga yaabiyey surprised uu asiga lagaga yaabiyey for the girl's eyes indhihii gabadha indhaheedii immediately markiiba light up worship man cara darteed and she fetched waxay soo qaaday several bottles dhowr quraaradood oo dhalooyin ah which she blazed ay soo dhigtay into the counter rasada for Harry agtiisa ahayd to inspect si u tijaabiyo mid kamid uu qaato inspect uu kormeer ugu sameeyo mid kamid kala baxa way for waris markiiba Harry had admit wuxuu qirtay defeat jabkiisii macnaha markii loo xanaaqay jabkiisii uu qirtay oo asiga dadku ku ciyaari jiray laakiin dadka ma xanaaqi jirin laakiin gabadha markay xanaaqday to admit wuxuu qirtay defeat jabkiisii he picked up mid uu kor u qaaday was yimid aad moodaysa to be smallest tii ugu yareed inay tahay the bottle but labadii ugu yareed inuu tahay and discreetly si qaf ama si macnaha degan asked wuxuu ga dalbaday the price qiimaha. He was glad wuxuu ku faraxsanaa tugada weynu la tago with a mere 5 guineas 5 guinea inuu ku qaato boonka hadda soo baxay lacagtii ka horreysay waxaa la dhihi jiray guineas and he beat hasty retreat wuxuu sameeyey dib u gurasho history retreat dib u gurasho sameeyey dib u gurasho ayuu sameeyey markii lagu xanaaqay weeye collection asoo ku qabsaday ku haysta way the precious bottle quraaradii qaaligeed ama labadii qaaligeed and his hand gacantiisii from then intaa kadib Harry ninkii ahaa decide wuxuu go'aansaday this little game gamekiisa ama ciyaartiisa yari he had invited or inqiraacay my proof to be expensive inay qaali tahay ama inay noqon doonto mid aad qiimo u leh expensive qaaliya iqtiraacay my proof to be expensive inay noqoto game qaali ama ciyaar qaaliya afwan this curious bottle quraaradan la yaab kale which now hadda advance waxay qurxisaa the bookcase qaanadihiisa buugaagta in his study qolkiisa daraasaadka was his first waa tii ugu horeysay and last purchase iyo dalabkiisii ugu dambeeyey for rare cosmetics dukaamada alaabta la isku qurxiya gaday mararkii dhifka ahaa alaabtii dhifka aheedoo dalabkiisa ugu horeysay ahaydna dalabkiisa ugu dambeysay weeye iyadoo casharo fara badan aan soo qaadanay waa Somali Star Online Training English casharo fara badan baan kasoo faa'iidaysanay sidaa darteed lesson 52 baan maanta aqrinay waxaan kusoo wadanaynaa Facebook page-kana fariin waa nagu soo reebi kartaa waana muhiim jiddan sidaa darteed fi amaan Allah wassalaamu calaykum ورحمة